waxaan maanta aan rabaa tusaale inaan idinkugu soo qaato my brother the one and only Lil Balil waa taqaanaan waa fanaan Soomaaliyeed oo saaxiibo aan nahay gabadhay kala tageen markii hore xushmadaan u hayay wada joogeen markay kala tageen sidoo kale xushmadaan u hayay haddii maanta iga soo horbaxdo haddii maanta wax iga baahato waxa weeye xushmadii biri aan u hayay ayaan u hayaa laga maraya inuu asiga iga caroodo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إذا لهانتينبا من والبا جوتاني سوى البادي داونسان كسر وهذا جنال برموتر عمار أوفيشال هذا جنال كات كعصبتها فلنا سبسكرايب سان هذا هرب نقول جوتاني جنال كان إنه سيشارك الفيديو جا وكما صنتها هذا ذاتك أنتوا دفر بدن يا إيجو عساني إن عكسوا هذا أنت معلومة يوجد بسوشيال ميديا كترنت وضد فرق بدن أي ما تحاول يسوي كي يتسوق عتان iskasoo kiyafagaadeenay ayuu weliba aniga aqoon aysan ilahayn. Haddaba waxaa rabaa laba arrimood kaliya inaan ka hadlo dadka social media qaabkay ugu firciyeen iyo aniga sababta aniga aan usoo dhaweeyey Manaal Galtaaje. Haddaba marka koowaad aan ka hormaro waxaa rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo qof walbo maanta aniga amoora ah fiidiyoyadeyda soo qaatay sawiradeeda soo qaatay TikTok ha noqoto oo ha noqoto Instagram oo ha noqoto YouTube oo ha noqoto Facebook whatever social media oo iyo aflagaadeeyo oo gif aniga shakhsiyadeeda ii geystay dhammaantood aniga cafis iyo masaamax yihiin qof maanta aniga aan u haysto ma jirto oo maalintii yawmal qiyaama aniga la soo weydiinayo qofku waxa ugu fiican cafiska badiya wal caafina can الناس wallahu yuhibbul muhsinin ilaahi subhanahu wa ta'ala leeyahay waa tahay qofka kale ووالد وقفي ووالد عايل لقمية مالك قفكاس أنا عافيه أما والدك هوقف أما والدك هوقفه لقمية أنا عافيه لكن خفنا أنا شخصيتي إذا أمر هذا يسوع عايل حد عيا عليه وحاقوسيني برميشن حداد فيوز كويليس عايل إذا حداد عايل سبسكرايب كويليس حداد عايل فلوة كويليس وأضيف السحسن تهاي برميشن يا أبو هيستا وأتكون مع تهاي عايدس laga mana yaab in aniga ka xumaad qof sharciga isu caayay isu aflagaadii ayaa maanta ugu laabeen because caayay aniga meel igama gelayso meel igama duleelinayso wax maaragtay waxa weeye waa qof walaalka oo u gartay caayada inuu ka helayo views iyo subscribe laakiin qofkii waalid iyo qabiil uga fiican laga yaab in aniga afiyo. Haddaba aan gudugalo sababta aan soo dhaweeyay Manaal sababta keentay haddaba sababta Manaal aniga aan soo dhaweeyay Manaal waa gabar walaashay ah horeyna walaashay bay u ahayd horeyna xushmada aan u hayay maanta waa walaashay xushmadna maanta waan u hayaa xushmada maalintii aan u hayay ayaa ilaa abtuna waan u hayaa sidoo kale gabar kasta oo Soomaaliyeed ayaa xushmada aan u hayaa waxaan maanta aan rabaa tusaale inaan idinkugu soo qaato Lil Balil waa taqaanaan waa fanaan Soomaaliyeed oo saaxiibo aan nahay gabadhay kala tageen markii hore xushmadaan u hayay wada joogeen markay kala tageen sidoo kale xushmadaan u hayay haddii maanta iga soo horbaxdo haddii maanta wax iga baahato waxa weeye xushmadii biri aan u hayay ayaan u hayaa laga maraya inuu asiga iga caroodo haddii maanta aniga u soo wacdo ee wax uu diiso ama maanta waxa weeye ilmaha adeerka aniga aan u ahay oo maanta waxa weeye aniga aan wareysto ama aan weydiiyo waxa weeye laga maraya inuu asiga iga caroodo tusaale ayaan aniga idinkugu soo qaadanaya taas. haddaba waxaan aaday gobolka Imaarfi ee dalka Jarmalka waxaan u aaday arrimo bareefad ah Manaal inay imaanayso aniga amoorahana waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi ma ogeyn haddaan ogaado hayna waxa weeye anoo ku tashtay oo Manaal iyadana ay og tahay ayaa waxa weeye aan tigi lahay aan soo dhaweyn lahay laakiin ma ogeyn sidaas ay tahay maalintii ay soo degaysay fiidiyowga aad ka daawateen way ku naxday wayse u qaadan weysay inuu amoora uu soo dhaweynayo Manaal way u qaadan weysay in amoor uu soo dhaweynayo alla amoor ay dhahay safiidiga aad arkaysid runtii Manaal anigu waxay ila mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ila mid tahay waxay sidoo kale aniga Manaal ila mid gabar kasta Soomaaliyeed ila mid tahay waxay ila mid tahay gabadha aniga hooyada ee dhashay waxay ila mid tahay gabadha aniga oo waxa weeye aabahay aniga u dhalay ayay ila mid tahay waxay ila dhalatay Manaal dib la'aan bay ila dhalatay gabar kasta Soomaaliyeedna sidaas oo kale dib la'aan bay la dhashay san adiga aad u baahan tahay gabadha adiga kula dhalatay
inay maanta farxad ay dareento saad maanta adiga aad ugu baahan tahay gabadha adiga kula dhalatay inaad garabkeeda la istaago saad maanta adiga aad u baahan tahay inaad horumar aad u gaarto saad maanta adiga aad u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed ama magac inaad ugu yeerato iyo iidana sidoo kale ugu baahan tahay anigana maanta anigu waxaan u garab istaagay sidee maanta gabadha aniga ila dhalatay ay ugu baahan tahay garab istaag ayaan u garab istaagay waxaa maanta video waxa sababta aan video u duubana waxay tahay saa gabadha walaasha YouTube ku cusub aniga ila dhalatay oo kale ee ugu baahneed ayaa sidoo kale ayaa anigana Manal aan waxa way video isku duubay maanta haddii ay Manal ay ahaaleed gabar walaasha ah haddii maanta Manal ay ahaaleed qabiilkaaga haddii maanta Manal oo adeerka u dhalahay waayu wallaahi waayu billaahi waayu tamahay garab iska dhaafe waxa weeye ma ilaa iyo sanadkan oo dhan sawirkeeda ayaa gadaal ku saarnaa lahayd laakiin maanta qabiilkaaga ma aha that is why ay u soo hojisatay waxaan maanta aniga aan aaminsanahay Manal inay tahay dulqaadkii qof ah weligeed iyadoo soo fadhiisan video ana soo duubin ana ka sheekeen waxay tabanayso ana ka sheekeen waxay maanta qalbigeeda ku guuxayo ana ka sheekeen cayb gafka aad u geysanaysaa iyadoo waxba inay kaga sheegeen oo waxaysan ahayn aad ku tilmaanteen dhan waxaad arkaysaa soo fadhiistay gabadhii oo maanta iska jafayo gabar waxaad arkaysaa waxa weeye kornaagad ku isma dheeraa leeyahay waxa weeye maanta iyadana sidoo kale gabadha caynayso u gafayso maanta haddii adiga ay kugu dhici lahayd ama gabar walaasha ay ku dhici lahayd ama adiga kugu dhici lahayd markaas ayaa dareemaysaa waxay maanta Manal ay dareemayso Manal aniga waxay iga mid tahay gabadha aniga hooyada ay dhashay oo kale waxay la dhalatay dib la'aan saamaanta u garab istaagi lahayd gabadha aniga ay la dhalatay ayaa sidaas oo kale ayaa Manal aan u garab istaagay haddaad igu nacayso igu nac haddaad igu jeclaanayso igu jeclaaw weligaadna weligaa ku leedahay weligaa igu nac go'aanka maanta aniga qaatay waxaan dhihi karaa waa go'aankii abid igu saxsanay nolosheeda gabar walbo Soomaaliyeed madaxay isaaran tahay xushmad iyo karaamad way ugu mudan tahay hadalka nuxurkiisa ayaa waxa ah gobonimadu sideeduba ma aha wax la iska keeno ee waa u dhalasho tusaale markay dii soo qaadayaan haddii maanta Manal ay ka dhalatay qabiilada ugu tunka waaweyn Soomaalida haddii maanta Manal ay ahaaleed qabiilkaaga haddii maanta Manal ay ahaaleed gabar ogaadeen haddii maanta Manal ahaaleed abga haddii maanta Manal ahaaleed habargid haddii maanta Manal ahaaleed mareexaan haddii maanta Manal ahaaleed isaaq waxay heli lahayd wiilal in adeeradeeda oo maanta xawaalka waxay heli lahayd gabdho in adeerteeda oo waxa weeye sawirkeeda iyo dhiirigeliyo notification siiyo laakiin ma aysan helin laakiin dadka intooda fara badan waxa weeye dad kale notification siinayaan asigu qofkii waxaa laga yaabaa asigu weliba qalad ku soo wariyaa gabadha walaasha waxay kaaga baahan tahay garab istaagay kaaga baahan tahay intaad maaragtay qabiil iyo wax kale aad ka daba ordayso gabadha kaaga baahan marka haddaba waxaa jiro tabiibiyaadka badanaa waxay tahay aniga maskaxdayda geli la dad maaragtay waxa weeye isku sheegay inay gabdhaha Soomaaliyeed garab siiyaan ee garab istaagaan oo maanta si toos oo bareer ah oo qabiil uga soo horjeestay qabiilku sidii qofka walaalka ah ina qabiil aad ku taageerto maaha maanta aniga haddaa qabiil aniga u taageeriso weligaa hay u taageeri ee waxaad u taageertaa wax aniga lahay biri marka aniga waxay la dhicinaysaa gabadhan aniga waxaan ku taageeray waa gabar Soomaaliyeed may Manal gabar Soomaaliyeed ma ahmiya Manal walaasha ma ahmiya Manal kulama dhalan miya haddaba wax aniga maskaxdayda galayo anigu taama noqonayso Manal waa maxay dembigay gashay maxaase ku ogtahay maxaa ka taqaanaa ma dembigay gashay ma waxay tahay maanta saad adiga social media magacaad ugu rabto maanta social media sida adiga u rabto inaad horumar u samayso inay maanta social media soo gasho ma dembiba gabadhay adiga ku weydiiyey wiilow adigana waxaa ku weydiiyey gabadha walaasha maanta oo YouTube ku jirto oo maanta alada in adeertay leedahay horumarka ay rabto miyaysan Manal rabin Manal waxay u timid wiilal walaalaheeda Manal waxay u timid abtigeed
aniga iyo Carlan waxaan aaminsanahay maanta inaan garanay wiilal badan oo Soomaaliyeed wixii garan waayeen maanta inaan garanay oo wallahi go'aankaas soo dhaweynta Manal aniga qaatay dad fara badan oo markii hore idii jiray Amore maasha Allah wiil fiican tahay Amore kidaa tahay Amore goorma wuxuu isbedelay markuu uu soo dhaweeyay Manal gabar walaashiisa markuu soo dhaweeyay miyuu isbedelay miyay kartaa markaas ma aniga isbedelay anigu waxaan ahay Amoraha baratay wiilgeena gabar kasta Soomaaliyeed waxa weey garab u baahan inaan siiyo balan iyo xadiya ka qaado because waxa dareemaya gabar walaashay waxay dareemaysaa ayaa dareemaya waxa dareemaya gabar kasta Soomaaliyeed ama qabiilkayga haato whatever waxay dareemaysaa for example qabiilkiina uu yahay ayaan idin soo qaadanaya imaajo maalintii maanta video tiis ka soo duubtay ee Soomaaliyeed tiri Soomaaliyeed ka soo gudubtay daaro way ka soo gudubtay hartii bay timid toos ilaa lafta maanta hoos ka tagay sheegtay dad fara badan ayaa maanta waxa weey hadalkaas ay leedahay dad fara badan ku difaacay because of qabiil tahay calaso sidaas oo kale dad fara badan ayaa qabiil ugu hiilinay for example waxa sidoo kale idin soo qaadanaya walaashay rasmi rays iyadoo xumaati arkay walaashay rasmi rays markii arrinteeda social media ka kacsanay waxa weey dad fara badan ayaa qabiil ugu soo hiilinay dad fara badan dumarnimo ugu soo hiilinay farxayeen sidaas oo kale dad fara badan ayaa qabiil ugu soo hiilinay sidaas oo kale dad baa raadinimo ugu soo hiilinay Manal ma waxay weysay dad iida u soo hiiliya ma waxay weysay dumar iida garab istaaga ayay weysay dumaro maanta hadii adiga kugu dhacdo ama biri walaasha ay ku dhacdo markaas ayaa dareemi doontaan wiilow adigana sidoo kale waxa dareemi doontaan gabar aad qabiilkii ila qabiilka taageerta oo ku jeeday qabiil waa ka dambeysay markay ku dhacdo gabar walaasha ama gabar isku qabiilkii markay ku dhacdo ayaa dareemaysaa maanta laakiin aniga waxa u dareemay qalbigayga wuxuu dareemayaa maanta Manal sida aniga gabar walaashay aan u dareemay ayaa u dareemaya garab istaag maahine waxay iga mudan tahay soo dhaweys iyo ina madax saarto wax walba ida farxad geli karaan inaan u sameeyo maanta aniga waxaan aaminsanahay Manal wax saas weyn inaan u sameeyo oo weliba booska walaaltinimo aan u soo buuxin hore ayay u baahnay mar walba u baahan tahay laakiin waxa balan ka qaaday hortiina inaan Manal farxad maahin farxad walba u baahatay wax walba aniga Amoriga baahatay ina garabkeeda nahay gabar walba Soomaaliyeed maaragtay waxa weey oo dhibaataysan ama murugaysan farxad waxay ku helayso aniga maanta daan awoodo wallahi oo billahi oo tallah waa sameynaya anigu maanta ma dhahayo gobbanahay gobonimadu sideeduna ma aha wax la iska keenkeeno ee waa dhalasho hadaba waxaan rajeynayaa inaad fahanteen dadkiina markaad daawanay waxa sidoo kale maartay rabaa inaan idin weydiiyo ma waxaad rabteen Manal inay guriga tagasho isku soo xirto ee ka dhaxayso ma waxaad rabteen Manal guriga dhexdiisa inay depression ku qaado ma waxaad rabteen Manal inay si dibadda isaga soo bixin Manal waa queen sida adiga ugu baahan tahay walaashaas inay farxad dareento ayay iyadana sidaas oo kale u baahan tahay hadaba aniga sababtaas ayaan u soo dhaweeyay hadda aniga sababtaas aad igu nacaysana igu nac hadda igu jeclaanaysana igu jeclaa wiligayna wadadaas oo ku taagnaa doona waxaan aaminsanahay inaad tahay wadadii ugu fiicneed abid waa mahadsantii